Danjiraha Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dalka Suudaan Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa maanta kulan muhiim ah la qaatay Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Kheyraadka Dabiiciga ah ee dalka Suudaan Injineer Cabdulqaadir Turkaawi. Kulanka Danjiraha iyo wasiirka waxaa ku wehelinayay madaxa ganacsiga ee Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeego iyo agaasimayaal ka tirsan Wasaaradda Beeraha ee dalka Suudaan. Kulankan ayaa waxaa looga wada hadlay xiriirka sooyaalka ee u dhexeeya labada dowladood iyo sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dhan. Danjiraha ayaa uga warbixiyay Wasiirka Wasaaradda Beeraha ee dalka Suudaan kheyraadka faraha badan ee uu leeyahay dalka Soomaaliya iyo sida muhiim ay u tahay inay iska kaashadaan horumarinta beeraleyda iyo wax soo saarkooda. Sidoo kale Danjiraha ayaa xusay in iskaashatooyinka beeraleyda ee labada dhan loo sameeyo isku xir si ay isaga kaashadaan ugana wada faa'iideystaan ganacsatada labada dhan dhoofinta dalagyada. Ugu dambeyntii, Wasiirka Beeraha iyo Kheyraadka Dabiiciga ah ee dowladda Suudaan ayaa soo dhaweeyay booqashada Danjiraha una ballan qaaday in dhammaan qodobada uu kala hadlay Danjiraha inay wax ka qaban doonaan ayna aad ugu wanaagsan tahay in la xoojiyo xiriirka walaaltinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyo in sare loo qaado iskaashiga labada wasaaradood iyo iskaashatada beeraleyda. Axmed British, Warbaahinta Qaranka, Khartoum, Suudaan.